عبد الله مو حلين هي بستيجو لقرب بابورتا سيدو كلا نعم لي يكريشبول كل شيء مية جرب مثلا ونظام كده ونظام خاص. وسؤال aad u habboon oo aad u fiican shaqada stage iyo nacamleeye waa maqli jirnay oo meelaha ka imaanay aan ku maqli jirnay Afrika Soomaaliya marka qofku markuu shaqada subax hore ama xilligu soo galaayo markuu soo galaayo meesha uu ka bilaabay shaqada koow waa inuu geerish gaari ka bixiyaa marka ugu horeysa shaqada soo galayso inaad geerish ka timaado geerish waa inaad timaadaa oo shaqadii aad soo gashay inaad soo gashaa oo cadayso inaad cadaysaa kadib waxaa lagu siinaa warqad halka aad ka bilaabaysaa iyo halka aad geynayso wada qoran yihiin tusaale ahaan magaaladana ka qaadaya magaalada ka geynaysaa iskuulkana ka qaadaysaa iskuulkaasa geynaysaa kugu qoran marka shaqadaas adiga kaligaa miya waaye oo hadhowta hawshaas kaligaa maa qabanayo mase nacamleeye iyo kirishibooy qofka kusii hore kusii raacay may markii adiga aad tahay darawal wax idilba adiga ku saaran tahay mas'uuliyadda halka aadayso iyo meesha aad ka bilaabayso halka aad geynayso mas'uuliyadda adigaas kale warqadaas keliya warqadaas ku cadaysan bis warqadaas ku cad marka qaar waxaa dhici karaysa in meesha aad ka bilaabayso halka aad ka bilaabayso inaad garawayso oo shaqada markaas aad bilaabayso qaybta ay tahay baska inuu ka shaqo bilaabo aan aqoonsanin soo warqadan kugu cadda oo xafiiska aad ka soo qaadato tusaale ahaan halka aad ka bilaabayso waxaa laga yaabaa waa qofkaan dhowr meeluu ku tagaa oo meel waxaa laga yaabaa inuu qofkii meesha fahmi waayo mararka qaar iyadoo meesha ku qoran tahay inuu fahmi waayo haddii ay dhacdo marka in meeshii aad baskii shaqada ka bilaabayd aad fahmayso maxaad samaynaysaa marka oo la rabaa darawalka inuu sameeyo si shaqadiisa iyo waqtiga loogu talagalay ay isku waafaqaan waa sax waayo qofka hadduu wax yar oo miins ama maakino oo dib u dhac dhaco dhibaatadina leeyahay taas awgeed waxay sameeyeen bas walba wuxuu wataa telefoon ku xiran oo la xiriiraya traffic oo xafiiska traffic la xiriirta sidii wax u jiraan u sharaxaysaa asagaa information ku siinaya keliya xataa ma ahan qofku meeshuu kasoo bilaabaya haddii cilad xagga baabuurka ay timaado haddii ay timaado wax dhibaataa mar walba xafiiska laga xukumo marka haddii meeshii aad ka baxaysay aad fahmi weyso amba ay qalad u yimaado meeshaas la xiriiraysa ayaa ku hagaaya si fiican marka booska marka nacamleeyaha ama karjibooyga ku raaci lahaa saasaa looga maarmay oo shaqadii adiga ayaa gaariga soo wada haddii caqabado yimaadaanne waxaad toos ula xiriiraysaa centralki amba xaruntii laga maamulaya basaska si fiican aan ku darsado tusaale ahaan qofku markuu gaariga meesha kasoo bixinayo oo gaarigiisa intuusan kasoo bixin waxaa dhici karaysa mararka qaar in baskii uu cilad xaggiisa ku timaado intuuna soo bixinba shidaal aan yahay ama wax kale inuu yahay mas-uuliyaddii oo idilba adiga ku saaran keliya adiga waxaa lagaa fududeeyey wiil qofkii wax cilaada ama meesha uu ka bilaabo oo qaladaada ay jiraan nala soo xiriiro automatically nala soo xiriiro telefonka nala soo xiriiro adigoo geeriska joogtaa marka cilada cilada kula kulmaysa aad kulmaysaa marka cilada si lagu hago telefonkaas aad ugu sameeyaa lagu yahay nala soo xiriir si aan kuu hago shaqadana tan ugu muhiimsana waxaa waaye in la hadlo oo qofku iyo maaragtay xafiiskaas laga xukumo shaqada inuu qofku mar walba la xiriiro ay la sameeyo waa tan ugu muhiimsan oo shaqada ugu muhiimsan nacamleey iyo maartino iyo qof lacag qaadaay iyo waxaas iyo shaqadaas ma jirto maxaa yeelay wixii idil waxaa laga maarmay telefonkan iyo lala xiriiro xafiiskaas lagu jiro waa qasab halka haato Soomaaliya haato waa la daalaa marba waa la daalaa shaqadu waa iska normal haddana daalka kala duwan halka markii aan joogno oo shaqada aan ku jirno dad badan shaqadeena waxay u badan tahay xogaa yar inaan xiisano waqti yar oo nasiina waayo qofku markuu shaqadu soo bilaabo oo meeshu alka uu keenayo badanaa waxaa lagu daalaa wadankii iyo markii darawaliinteena waxay ku daalayaan intii la hadlaya kirishbooga shacabka intii la hadlayaan halkan dadku ma wada hadlayo dad la hadlaya ma jirto waayo dadku badanaa way wada mashquulsan yihiin waxa lagu daalayo oo markii ay sheegay badanaa darawaliinta Soomaaliya ku daalayaan waxaa kamid ah in shacabkii iyo wixii wadin ku daalayaan
aniga waqtigan aad u yaryahay maxaa yeele marka aan gaariga aan soo kaxeyno waxaa laga yaabaa marka aan imaano inaan ku haysano bread 20 daqiiqo camal aan ku haysano haddana aan laabano 10 daqiiqo aan haysano waqtiga la shaqeynaa marka wuu kooban yahay aad u kooban yahay oo badanaa shaqada daalka xaggeeda wuu yar yahay oo aad u gaaban yahay haddaan kusii dheeraado jawaabta mararka qaar waxaa jiraysa sida adiga sabtida iyo xadda oo kale inaad kaxayso adiga maarkan sheeg 1 saac ama 2 saac camal aad darawalka u wado baska aad wado yes oo baska markaa darawal markaas waxaa dhacaysa qofku inuu daalo muxuu sameynaa marka qofku wuxuu sameynaa inuu markaas daalo in qofkii uu ama uu idaacaddii iskaga mashquulo oo idaacad iska dhegeysto wax kale inta kale waxaa loo ogolya qofki inuu hadlo oo telefonka uu ku hadlo oo iphoneka qofku maarkin oo trafiiga kale ama darawal kale information oo iska weydiiyo information weydiiyo xoogaa yar hadduu yara caajiso inkastoo badanaa la ogoleen tan jaadkan intana mamnuuc waaye ma la ogola wadankan jaadkii waxaas mamnuuc ka yahay wadankan lama ogolo mukhadaraada ka yahay oo lama ogolaba badanaa laakiin si hore kugu sheegay jaadku wuu kooban yahay oo badanaa lama daalin qofku darawalku ma daalayo marka saacadaha aad shaqaynaysiin ma ka yartan soomaaliya aniga soomaaliya waxaan aragnay in darawalku uu subaxii 12 saac intuu garaashka yimaado gaariga soo bixiyo shidaalka kusoo shubo asaga iyo kashboogiisa ay soo raacaan ilaa iyo habeenkii 5 saac fiidnimo inta laga gaarayo ay basaska wadaan marka idinka saacada ka yar amba oo aad shaqaysan ma jirta taas maanan keenaynin daalka maaslada waa sax walaal waa mahadsan tahay halkan saacadaha badan ma lagu ogolaba sharci ahaan lama ogolo qofku saacado koobana loo ogol yahay inuu shaqeeyo adiga qofku hadduu shaqada 12 saac ama 6 uu bilaabo shaqada kuma jiri karo ilaa 6 lama ogola intee marka saacadood qofku loo ogol yahay marka inuu shaqeeyo qofku wuxuu shaqeyn karaa 2 saac iyo bar ilaa 8 saac ilaa 9 saac uu shaqeyn karaa laakiin wax adiga 12 saac isku xiriirta 12 saac xiriirta waa inuu qaataa fasax dheer oo qaataa break hadduu saacado ma shaqeynayo waa inuu break badan ku jiraa waa inuu soo nastaa labada oo marka shaqada ugu soo oo kusoo laabtaa exactly tusaale ahaan darawaliinta ka shaqeynaysa magaalooyinka fog kale saacado loo ogolyahay nastaan oo adiga kooban iyo saacado ay wadaan waa in qofkan naftiisana dad badan mas-uul ka yahay oo dad badan mas-uul ka yahay marka darawaliinteeni soomaaliya qofku waxaa laga yaabaa inuu 6 soo galo ilaa 10 saac ku jiro halkan leesiga qofku weynaa qofku marka uu saacado badan u shaqeeyo maxaa imaanaysa inay wax qalad u sameeyo qaladka maxaa sababa dib baa loo baaraa qofku waxaa la ogaanaya inuu saacado badan shaqeeyo marka waxaa waaye isku soo duub gundhiga jawaabta macnaha waqtiga aad shaqaysaan oo waqti kooban ah oo qofku uusan ku dareemin daal saacadaha haddaad shaqaysaanna waa in yar aad soo nasanaysiin kadibna shaqadii aad dib usii wadanaysiin marka meeshaas waxay ka saaraysaa qofka inuu daal badan dareemo intuu shaqada ku jiro waa mahadsantaha cabdullahi qofka rakaabka ee baska soo raacaya baasijeeriga ah lacagta ma baska gudihiisa ayaad ugu dhex qaadaan oo inuu ku bixiyaa markuu baska soo koro mase waxaa jira sifooyin kale basaska lagu bixiyo tan kale aan ku raacinayo waxay tahay qofka baska saaran ee raba inuu ka degto maadaama baska uusan lahayn karishbooy sidee ku ogaanaysaa qofkan inuu degaayo oo rabo baska inuu ka dego oo kugu sheega ama intuu ku yimaado ma ku leeyahay baska ii jooji qofka rabasa baska inuu soo raaco qaabkuu kusoo raaca asiga runtii waa su-aalo aada muhiim ah oo kuseeya dhanka darawalka iyo maaragtay baska xaggiisa kuseeya kow haddii aan kugu bilaabo tan lacagta xaggeeda oo qofku lacagta halku ku bixina iyo qof ka qaadaya jira halkan lacag lama qaado qofka shaqeynaya lacag qaadis ma jiro in lacagta qaado qofka shaqada baska xaggiisa ma jiro shirkaddu waxay samaysay mashiinkaas ayuu qofku darawalku u imaana lacagta goosanaa darawalku u imaana uu leeyahay halkaas ustaa lacag darawalka u jaraya darawalkana mashiinka uu hor yaalaa mararka qaar badanaa
ma dhacdo inuu darawalka lacagta u jaro waayo dadki badanaa waxay wada isticmaalaan mobile mobilekaas waxaa ugu jiro systemkii ay ku goosan lahaayeen ticketkii waayo qofku mar walba darawalku mar walba ticketka ma jaraayo tan kale hadaan ku raaciyo ticketku markuu darawalku jaraayo iyo qofku markuu iibsanayo kala duwan tahay markuu darawalku u goynayo uu ka qaalisan yahay taas waa marka dadkii badanaa darawalka inoo sigaan exactly marka dadku waxay sameynaan badanaa mobilka ka jirtaan mobilka goosanayaan badanaa waxaa dhacda dadka waayeelada oo kale oo badanaa mobilka aan isticmaalaynin oo mobilka ku adag yahay ama mobilkooda dabcan laga yaabo inuusan internet u lahayn si fiican qofkaas uu darawalku jaraa maxaa meesha yaal marka qofkaas lacagta qaabka uu ku dhiga lacag cadaana ama cash muu bixina mase kaarka bangiga uu isticmaalo ayuu ku bixina waa mahadsantahay horta mar walba systemka mar walba waa la doonaysiiyaa hadda systemka waxaa laga bixiyey oo systemka lacagta lagu bixiyey waxaa laga bixiyey waxaan ku jirin kaarka oo haddii la yidhahdo debit ama visa kaarka la yidhahdo kuma jiro lacag ma bixiyo marka qofka baska gudihiisa uu soo galo keliya wuxuu isticmaali karaa qofka cash haddaan ma bixiyo waa hore waxaa jiri jirtay qofka inuu kaar caadi oo isticmaalo mashiinka uu saaro oo lacagta automatic ugu galo ayaa jiri jirtay waa adi sanadka hore sanadka male waa la joojiyey qofku marka wuxuu sameynaa darawalku imaana hataa badanaa ma dhacdo in qofku darawalku qof tigidk inuu goosto in kalena darawalku yimaado yirahdo tigidaan goosto yirahdo badanaa ma dhacdo taas maxay keeni kartaa marka qofkii marka waxaa meesha ka imaanayso waxaa su-aal waxay ka imaan kartaa qofkii goostay iyo qofkii aan haysan sir u oran kara ilan shaqadaas aniga waxaa noo qaban jiray krishbega noo qaban jiray laakiin halkaan kama jirto halkaan marka sidee ku ogaanaysaa marka qofkii aan lacagta bixin iyo qofka bixiyey marka hawshaas ma adigaa qabanayo mise nidaam kale ayaa jira oo lagu kala ogaanayo qofka lacagta bixiyey kaan bixin darawalka mas-uuliyad kama saara qofkii aan imaanin yidhaahda ticket iibkooda keliya mas-uulka yahay qofkii aan goosanin aan u imaanin inuu yimaado qasab kuma ahan darawalku inuu lacag bixi waayo darawalku qofku u yimaado unbuu jaraa maxaa soo haray qofkii aanan jaranin asagoo mas-uuliyaddiisa waa qofku yimaado ticket ku jaro qofka aanan jaranin marka oo biliyati aan wadanin baska soo raaca يعني قفك مثلاً سأقول قفك تيجي أنا وذني نحتاج كذا صح قفك تيجي أنا وذني مثلاً مثلاً حاجة إذا قفك إنه تيجي وذن أصوغله لكن تاس والد دولده أما شركته تطبيق اسمه ماشي أنا قاعد نقسم السنة كشوي أي وردت خاص أو خارج السن إني لصعب أنا تيجي قفك كوست أو كان كوستن أي وحساكي أي اسمه استين وشقاية اسمه استين خلاص ayaa ku shuqula oo qofku weydiin kara qofkii aanan haysanin dhinaci kara marka shaqadaas intay joogaan baskay la socdaan markaas ay saaran yihiin oo xilmad walba baska ay dul saaran yihiin mise dhaqdhaqaaqyo kale oo ay kala socdaan jira shaqaalahaas badanaa baska ma saara badanaa oo maxaa yeelay ayagu meel oo gooniya ay fadhiistaan ma jiraan waayo bas walba raaci karaan waxaa laga yaabaa marka qaar baska inay raacaan ka degaan kana degaan waayo waa international dad guud waayo oo baska u xisaaran inay dadka kontrolaan marka qofkii ay la kulmaan asagoo baska saaran lacagna aan bixinin ay la kulmaan ma baskay ka dejinayaan oo degay iska bax may leeyihiin mise lacagtay meesha u qaadayo waa dhowr nooc waa qof mar walba waxay ku xiran tahay qofka markaas kugu soo aado waayo waxaa dhici karaysa qof inuu su'aal uu ku yiraahdo lacagta hadda bixi ama qof uu ku yiraahdo warqadan hoo ama qof inuu isu kaagay xataa marka qaar dhici karta waa dadku isku mid maahan dad qaar ah iska markaas waxaa la leeyahay bixi lacagta oo baska hadda aad ku soo raaci lahayd uusan soo goosanin mise lacag ka badan oo dheeraad ah ayuu bixinaa maadaama uu baska soo raacay isagoo kaarka awood waa su'aal fiican qofku markuu qofkaas la kulmo oo qofku uu yahay qofka ticket ka goosan wuxuu la kulmayaa ciqaab lacag ka badan xataa lacagtaas qofkaas waxaa laga yaabaa inay xataaba ay dhacdo inay ku filan tahay inuu ku raaco bish hal bil ama ka badan inuu qofkaas lacagtaas halkaas maalmood bixi lahaa marka badanaa si taas dadku ay uga cararaan waxay ku qasban yihiin inay ticket ka goostaan si fiican oo badanaa haddii qofku uu ku dhaco ticket taas uu ku dhaco
waxaa imaanaysa bil ama ka badan inuu qofku waayo lacag. waa barta aad u maasanta waxaan filayaa taas inay dad badan ay fahmi doonaan marka qofka baska saaran ee rabo baska inuu ka degto ma adigu kuu imaana uu ku leeyahay baska ii jooji oo markaas meesha uu kugula hadla ugu joojinaysaa mase astaamo ama calaamado kale oo lagu garan ogyahay jiro qofka raba inuu bas ka degto waa sax waayo baskii qof lagu soo degaa qof lagu galaya soo ma qof lagu degaa tusaale ahaan qofkii baska saaran ee ka degaya waxaa jirta baska dhexdiisa gudaha badan ayaa jira oo qofku taabsanayo oo qofku marka uu meesha uu ku degi lahaa isoo dhawaato inuu badan ka taabsado darawalka hortiisa marka waxaa kasoo baxaya nal gaduudan uu dareemaya darawalka qof inuu rabo inuu dego degdegtagi stagadu taagan yahay qofku waxaa laga yaabaa baski lambar uu leeyahay qofku inuu baskiisu yahay inuu baskiisa asaga tahay mas-uuliyadiisa inuu fiirsado marka qofka hadduu yahay baskiisi wax kale maaha gacanta buu taaganaya oo macnaha qobxina ishaaro inuu qofkii uu baska raaci marka meesha baskii oo istaagi lahaa ama dadka qaadi lahay ama dadka ay ku degi lahay qofkii taagan ee baska u baahan waa inuu asaga gacanta u taagto hadda badanaa bulshada dhexdeeda waxyaabaha badan oo aniga hadda darawalina ciqabadaha la kulanay kamid yihiin mararka qaar waxaan ku dhacda in qofku asigoo taagan telefoonku mashquul exactly oo darawalkii baskiina uu dhaqa uu gudbo is yidhahdo qofkan ma u baahna baskan inuu raaco baska kaa dambeeyo barhibad inuu raacaya laga yaaba oo ka gudubtay baskana uu ka tago si wanaagsan waayo qofkii darawalkii wuxuu sameynaa inuu qofka soo dul istaago mararka qaarna waxaa dhacdo haddii aan ku raaco in qofku intuu dul istaago oosan qofka rabin oo inuu gaarigan uu raaco laakiin qofka uu taagan yahay halka laga raaci lahaa baska uu taagan yahay waxaa ku qasbanaanaya markaas inaad istaagtid qofka haddii uu soo raaci waayena aad waqtigaad markii gaar hore usii dhaqaa mas-uuliyadda aan ku meesha haddii aan ku bayaanay qof mas-uuliyaddiisa darawalka qofka hadduusan gacanta taagan badanaa mas-uulka ma ka dhaqi karaa waayo dhowr bas halkaan soo marayso marka lama oga qofka baska uu raacayo baska uu raacayo midkaaga miya mase midka si fiican marka adigu qofka laakiin qofka haddii uu taabsado numberka istaaji baska stopka badhanka guduudan aad sheegta ku qoran waxaa ku qasban tahay stopka kugu soo horeeyo inaad istaagto si qofkaas ugu degto si wanaagsan taasna haddii aan waxyar ku darsado adoo mahadsan waxaa dhici karaysa mararka qaar qofkii inuu meesha uu rabo markii uu u dhawaaday inuu taabto mararka qaar darawalka ku taa dhibaato mararka qaar darawalka badanaa ma istaagayo hadduusan qofka waqti uu ku istaagona helin mararka qaar qofku isagoo meeshii ku dhawoodna waxaa laga yaaba inuu taabsado darawalkiina meesha usoo dhawaatay amba afka horaad soo gaartay inuu qofka markaas taabsado inuu qofka taabsado laakiin darawalka uu qaato stopka inuusan ahayn kan ku xigin uu yahay badanaa waxay ka dhacdaa dhalinyarta waayo mararka qaar taleefon aa lagu mashquulsan yahay waxbaa qofka wuu maqan yahay hataa marka ciladahaas anaga ciladada gooni aniga aan qabna wey aan darawalada xaggooda darawalada guud weliba cabdullahi qaabkeed ku heshiin lacagta mushaarka bishii way dhammaatay waa soo shaqaysay mushaarkaaga xaqa u lahayd ma maalintaas oo daily ayaa maalinkaas lagu siinaa mase bishii ayaa mar la bixiyaa mushaaraadka qaabkeesa lagu bixiyo waxaan umalehaa haddii xaggii mushaarka la gaaray waxaan is leeyahay baska arigiis wayna soo dhamaatay dhanka mushaaraadka haddii aan waxyar ka taabto mushaarka kulli badanaa aniga waxaan u qaadaa labaatanka bisha dadka ku qaataan qofku waxaa qaabilsan guddi qaabilsanaa jiro xagga mushaarka oo shirkadda kamid ah guddigaas wuxuu sameynaa qofka bisha hore uu soo shaqeeyey oo saacadii oo isku xisaabina inkastoo qofku hadduu yahay joogto u yahay wixiisa ay iska yihiin wax gooni yihiin oo wax si baan yihiin laakiin qofka hadduu yahay qof aan joogtayn wixiisa wuxuu baahan inay xisaabiyo oo xisaabaha loo soo gudbiyo qofku badanaa marka wayna kala duwan yihiin qofka mushaaraadka laga duwan daa ku qaata amba 20 ku qaataan waxaana qaabilsan guddi gooniya oo shirkaddu qaabilsan oo lacagtaas inta u qaabilsan oo adiga ama 20 ama 12 kana waqti cabdullahi waqtiga oo nagu yar aawiis waxaan soo gaarnay gabdhowii barnaamij ugu dambeyntii waxaa tahay wiil dhalinyaro ah muddo aada u fog ilaa muddo 5 sano ku dhawaad bas ku wado gudaha dalka Norway nidaam iyo systemna meeshaan ka bartay saan dareemayo ma ku fikiraysaa inaad Soomaaliya aad dib ugu noqoto darawal ka noqoto
ama aad suurto geliso shirkad lamida sida shirkadaha nidaamyada hadda meeshan looga shaqeeyo oo kale in dalka la geeyo maadaama ay noqonayso baahiyo noocaas oo kale inay dalkeena ay ka jiraan. waa mahadsan tahay. halka hadda aan ka shaqeyno shirkadaha aan u shaqeyno badankood dadka aniga hogaaminayo darawaliinaysa waa jirin badankood. marka aniga hamiga aan leeyahay maadaama darawal aan systemkan aan ka fahmayo nidaamka aad fahmayso ka fahmayo waan ku fikiraya waayo shaqada aan hayo keliya maaha inaan darawal ka noqdo waayo hadda dadka aniga la hogaamiya darawaliinaysa waa jirin waan jecelahay in wadankeyga haddii aan nidaamkan in la tago oo aan markino waxa aan ka shaqeeyo iyo xifradeyda aan u gudbiyo waan jecelahay aad ugu faa'iideyso aan ugu faa'iideeyo waayo darawaliinta idin badanaan aniga waxaan isleeyahay kaligaa ma haydo oo darawaliinta qaar dad qaar oo darawaliina oo sida u fikiraya inay jiraan waa laga yaabaa waayo qof walba shaqadiisa wuxuu jecel yahay inuu meesha uu sarreyso uu ka gaaro exactly. marka waa su-aal muhiima qof walbana waxaa waaye iyo darawal ah oo anaga maadaama khaaskanowi aan joogo asxaabta dhan oo darawaliintaana ayagana waxaan ugu baaqayaa in shaqa adag inkasta ay tahay mararka qaar xilliyada qaboobaha in caqabado badan iska imaan karaan in xoogaa yar bitooyin badan taxadir badan marka halkaa laga shaqeeyo khaasatan marka halkaa laga shaqeynayo waa intaas aan raacsana waa mawduucii xoogaa waan ka baxay. marka haddii waayo qofku halkaa markuu joogo xilliyadii waa iskala duwan cimilada isbedelaysa qofka marka inuu taxadar mar walba muujiyo maadaama wadankii wax lagu wadaayay iyo wadooyinkeedii iyo cimilada isbedelaysa dhibaatooyin ay ka imaan karaan waa tahay oo barf waxa la dhacayo marka waa mahadsantahay ayagana maxaad ugu baaqaysaa marka sidaadoo kale ay u fikiraan in dalka Soomaaliya nidaamkan iyo systemkan aad barateen ee quruxda badan ee wadankii aad geysaan si mataqaanaa shirkadaha noocan oo kale meelaha ka shaqeeya dalka ay ka hirgalaan idinkana aad hormuud u noqotid darawaliinta halkan dhammaan waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in fikirkaas in nidaamka halkan ka jiro uusan keliya ku ekaanin inaan anaga aan mushaar ka qaadano inaan cilmi iyo aqoon ka korsano si anaga halkaas aan ugu sii abuurno asxaabta dhan oo darawaliintaana waxaan uga laftirkooda ku baaqayaa in fikirkaas hadduu macquul yahay aan ka wada shaqeyno haddii macquul tahay anina darawaliinta unbaa kamid ahay kulley qof walba fikir gooni u qabi karaa laakiin fikirkii waxaan jeclaa inaan shaqadan aan ka shaqeyn inaan wadankeyga ku geeya aan jeclaa. kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh Muuse oo ah wiil dhalinyaro isla markaana bas ku wada magaalada Bergen wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka suuqa shaqada iyo ganacsiga Soomaalida dalkani Norway oo aad ka daawanayseen Aragti Cusub TV. barnaamijkan waxaa soo saaray saaxiibkay Cabdirasaaq Qulus, dhinaca kaamirada waa Cabdikariin Guutaale, dhinaca farsamadana waa injineer Maya Mooge, anigoo Bile Maxamed Cabdi Anaan waa idinla socodsiinayay. inta aan barnaamij kan lamid ah ku kulmi doono dhammaanteen annagoo isku duuban waxaa idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum.